beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay waxayna ku amaaneen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh la gaaray ku saabsan fulinta isbedelada laga sameeyay xagga ismaamulka lacagta ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dib u habeynta lagu sameeyey hay-adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay al-shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyey dib u heshiisiinta gobollada qaarkeed waxaa la isla qiray inay jiraan weli caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhallinyarada in dhaqaalaha la kobciyo in la sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka bani aadamka iyo in asaaska loo dhigo wada tashiga siyaasadeed iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo in haweenka iyo dadka laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo matalaad Soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoog ahaa waxay ku heshiiyeen wax la yiraahdo mutual accountability framework oo ah isla xisaabtanka loo dhanyahay kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaara oo u baahan waxqabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horeysa bisha December 2020